daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey khilaaf xooggan oo soo gala dhexgalay madaxweyne farmaajo iyo ninka lagu magacaabo James Iswam oo u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxaa la leeyahay khilaafkooda wuxuu ku salaysan yahay isla markaasina doorashada ninka lagu magacaabo James Iswam ayaa kulamo xasaasi ah ka wada meel kasta asigoona la tashan ama madaxweyne farmaajo wili u tagin ayaa khilaafkooda iminka soo ifbaxaya waxaana la leeyahay wadadii ninkii hore ma mari doona mise waa ay kala badbaadi doonaan madaxweyne farmaajo aad ugu xanaaqsan dhaqaaqyada uu wado isla markaasina la tashanayo qaabka doorashada ugu dhacaysa dalka ayaa waxa uu leeyahay dalka farmaajo ayaa xukumo James Iswam xukumo Jamesna waxa uu taagan yahay waa naga wada dhaxaysa waxaa soo ifbaxaya khilaaf iyo xiisad bilow ah oo ka dhex oogan madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ergeyga gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswam sida ay ogaatay warbaahinada qaar madaxweynaha ayaa la sheegay inuusan la dhacsanayn dhaqaaqyada siyaasadeed oo dalka ka wada James Iswam isla markaasina afarta cirif oo kala gooshay siyaasi kasta oo la kulmaya kadibna oo kala tashanayo doorashada qaabka u dhacaysa taasi oo jeclaysan madaxweyne farmaajo Mr. Iswam ayaa si xawli ah u wada tashiyada ku aadan nooca doorasho ee dalka ka dhici karto isagoo la qaadanaya mas'uuliyiinta maamul goboleedyada xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah kuwaas oo dhammaantood aan ku aragti ahayn madaxweyne farmaajo meeshaas ayay ka qurunsan tahay sheekadaas ahaatee farmaajo ayaa laga yaabaa ninkan inuu mar kale eriyo sidii ninkii hore kulanka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ayaa looga hadlay wada tashiga James Iswam iyo saameynta ay ku yeelan karto rabitaankiisa nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa ee uu doonayo madaxweyne farmaajo waxaana la sheegay in arrintaasi ay muhiim tahay in lagala hadlo James Iswam maadaama uu iminka yahay nin galgal badan isla markaasina dadka inta badan la kulmay James Iswam ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha afhayeenka baarlamaanka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda xisbiyada balse wali ma la kulmin madaxweyne farmaajo waxaana la sheegay in madaxweynaha uu ka meermeerayo kulankaasi hase ahaatee si kastaba ahaatee arrintaasi ayaa waxaa la leeyahay khilaafka uu soo xoojinaya farmaajo ayaa rumaysan in dalka ay maamusho dowladda Soomaaliya ayna tahay inay ayaga go'aan ka gaarto doorashada halka Iswam uu rumaysan yahay in talada dalka ay wada leeyihiin dowladda mucaaradka iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ku jira madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee Soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo koox kale oo ku xiran xafiiska madaxweynaha ayaa doonaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo aysan dadka oo dhan ka qayb galin balse tiro yar oo dadka dhan ay wakiilada ka noqonayaan la kulmaan la isku keeno magaalada Muqdisho taas oo matalaya in dhammaan inta milyan ee Soomaali ah ay matasho sidaasina ay ku doortaan madaxweyne farmaajo taasina waxa aad ka soo horjeeda khayra iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhinaca kale xisbiyada madaxda maamul goboleedyada baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qaba in aysan suurtagal ahayn in dhowr kun oo ay wakiilo ka noqdaan dhowr milyan oo Soomaali ah sida daraaddeedna maadaama aan dalka oo dhan doorasho qof iyo cod ah laga hirgelin karin ay tahay in la helo nidaam kale oo wanaagsan isla markaasina ay ku wada qanacsan yihiin saamilayda siyaasadda su'aasha taagan ayaa ah James Iswam ma mari doonaa wadadii Nicholas Haysom oo wakiilkii hore ee madaxweyne farmaajo qoorta isku galeen isla markaasina la yiri maalin cad waad inaad dalka kaga baxdaa si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa cid isku shareertay waxaana la filayaa maalmaha soo socda in ay kulmaan haddii ay kulmi waayaanna halkaasi bayaan cad laga soo saaro si kastaba ahaatee arrimahaasi iyo arrimo kale ayaa daawanaysaan fadlan calansida team la joog dhinaca kale madaxweyne سعيد دني أو شاعية صوبت اللوجو دقيقة إسلام مركزنا اللوجو معارضة أي مأمول كبودلان مدحوينها دولة جوالات كبودلان سعيد عبد الله الدني أيا كهذا لي حرادة كمتني أفراد عيدا كدراويش تأي الدولة كجروي أيا كهذا لي عريم الدور أو كأدن حالة مأمول كاسب مدحوين الدني أيا أبوه رين شيء إن حكومة دي سبله لصودا في أي حوج صار تيدبو ديسك عيدا ماذا يسيري لوتا ين لها وحونة المامي إني وح هذا ugu qabsoomin qorshihiisii ayuu yiri sida kale wuxuu soo hadal qaaday sababta lagu mucaarado maamulka uu hogaamiyo Saciid Dani isagoo xusay in lagu dhaliilayo markasta inaysan bixin mushaarka ciidamada maamulka Puntland hase yeeshee uu gaashaanka u daruuray wuxuuna qiray inay si joogto ah u bixiyaan xuquuqda ciidamada iyo mushaarka asaate Saciid Dani halkaas ku faanay Dani ayaa intaas ku daray in Puntland ay ka go'an tahay inay hesho ciidamo ku filan oo awood u leh kuna seexan karaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland muddadii hadda la joogay waxaan dad fara badan oo labada dalka
wuxuu yidhi muddo fara badan oo ladan dalka joogaan waxay nagu mucaaradaan uu yidhi mushaaraadka idin qaybino mushaarkiina joogta uma heshaan taliya dowladda lacagta ma bixiso la leeyahay ayuu yidhi lacagta inay baxdo idinka og ayuu yidhi madaxweyne dani oo la hadlayay ciidamada ka tirsan daraawiishta puntland islamarkaasina halkaasi khudbad ugu jeedinayay ugu dambeyntii wuxuu kala dardaarmay saraakiisha ciidanka inay si hufan u gutaan waajibaadkoodii loo igmaday islamarkaana ay xoojiyaan oo yidhi howlgalka lagu xaqiijinayo golaha amniga maamulka puntland hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa puntland ay godob ka geysteen gudaha maamulkaasi kuwaas oo ka cabanaya mushaar la-aan islamarkaasina qaarkood ay sheeganba inay muddo bilooyin ah mushaar helin si kastaba ha ahaatee arrintaasi waxa uu yidhi waa been dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo toogasho ka geysta magaalada Muqdisho warar kala duwan ayaa sheegaya ama ka soo baxaya dil uu maanta askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya wiil dhalinyaro ahaa ugu geystay agagaarka isgoyska howlwadaag ee magaalada caasimadda Muqdisho marxuumka la dilay ayaa ahaa wada mooto bajaaj ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Yuusuf Axmed Cosoble dilkiisa ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay darawalkaasi iyo askariga oo markii dambe rasaas ku furay taasi oo sababtay geeridiisa isla markaasina goobta iskaga baxsaday wararka ayaa sheegaya in Yuusuf Axmed Cosoble uu dhawaan ka yimid dalka Koonfur Afrika kuna biiray dhalinyarada ka haysa mooto noocyada bajaajka taasi oo muddo badan oo kusoo xamaalanayay dalka South Africa cabsi iyo walwal badan oo kusoo xamaalanayay ugu dambeyntii markuu kastoo helay oo isdhahay alla ilaahay kastaan waxa ku biili kartaa reerkaadii kadib oo magaalada Muqdisho ugu soo laabtay si uu nolol maalmeedkiisa iyo reerkiisa ugu biilo waxa uu gatay bajaajkaasi ayaa muddo dhow u shaqaynaysa ahaatee askarigani ayaa sabab u noqday askariga toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu waramayaa inuu isaga dhaqaaqay goobta ama uu ka baxsaday mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha amniga hase yeeshee dhowr mar ayaa arrintaasi dhacday inta badan ciidamada dawladda ayaa magaalada Muqdisho dilal ugu geysta darawalada bajaajleyda ah marar badanna dhigay dibadbaxyo cabasho ah taasina cid jalax uma dhigin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa horay u ballan qaaday in wax looga qaban doono dilalka loo geysanayo dhalinyarada bajaajleyda ah balse ilaa iminka wax laga qabtay haba yaraatee male waxaa sii badanaya oo kaliya dilalkaasi dhinaca kale ahlu sunna wal jameeca oo ka hortimid shuruudaha lagu xiray xildhibaanada galmudug ee isla markaasina cusub hogaamiyaha sare ahlu sunna wal jameeca ayaa si weyn uga hor yimid shuruudihii xalay soo bandhigeen guddiga farsamada maamul dhisida galmudug kuwaas oo la xiriiraya kamid ahaanshaha baarlamaanka cusub war ka soo baxay ahlu sunna wal jameeca ayaa lagu sheegay in shuruudaha guddiga aysan quseynin 20 xubnood oo ay dhawaan soo xushay sidoo kale ahlu sunna ayaa shaacisay inay xor u tahay xubnaha laga siinayo baarlamaanka labaad ee galmudug taasina ay ku caddahay heshiiska la gashay dowladda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre qoraalka ka soo baxay ahlu sunna wal jameeca sidoo kale lagu sheegay in guddiga doorashada galmudug ee ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya aysan welin aqoonsaneyn isla markaana aysan ku lahayn wax matalaad ah ayuu yiri ugu dambeyntii waxa ay ahlu sunna ugu baaqday dawladda dhexe inay ilaaliso heshiiskii labada dhinac iyadoo ay tilmaamtay in dhankeeda ay sidii u fulisay ayuu yiri arrimaha ayaa ku soo beeganaya iyadoo xalay guddiga farsamada uu soo saaray 11 qodob oo laga doonayo qofka noqonaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka guddiga galmudug iyadoo qodobadaasi saameynayaan dhammaan 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug magaalada Dhuusamareeb ayaa xarun gobolka Galgaduud ayaa waxa haatan ka socoto soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug waxaana shuruudaha la soo saaray xilli aanay horay u kala cadeyn qofka noqon kara mudane baarlamaan galmudug taasi oo iminka la leeyahay waxaa lagu soo xiray shuruudo aad u fara badan halka naga daawanaysan waa Calansida Media fadlan nala joogo oo daawar bixinadii ugu dambeeyay waxaa soo socdo warar xasaasi ah isla markaasina fadlan Calansida member ka mid noqo oo nala joog